wuxuu yiri waxa laygu eedeynayaa inaan gabadh kufsaday laga yaabaa in la shirqoolay oo laga dhigayo maxaa la yiraahdaa ku soo celi abba ergaas inaan waxa laga dhigayaa wuxuu yiri gabadh waxa laygu xiri doonaa ama laygu eedeyn doonaa buu yiri fiidiyoyadiisa ama hadaladiisa kamid ahaa gabadh baa kufsatay baa laygu eedeyn doonaa buu yiri laga yaabaa in la shirqoolay telefoon kale ma kula yaalaa ani waxaas ma maqlin wuu ku jiraa fiidiyoyadiisa hadaad dhageysatid dib u raacmay telefoon kale ma haysataa abooyima dhawaa intee fiidiyoyadiisa kuwan aad hayaa intee kaga qoran tahay ii sheekee waay fiidiyogee waa isleedahay hal u dhageyso okay maxamuud ma geli karaa wax yar soo celin karaa fiidiyoga soo eegi lahaa soo eega baa kusoo qabanaya floor soo dir walaalahay gabadha walaashay waxaan u joojiyey waxay tahay anigu videogaas ma arkin uu saas leeyahay walaalkay maadaama video aan arkin uu yahay in wax aan arkin laga hadla ma rabi so inta meesha ku jirto dhan hadalka waa qaateen zam soo gala baayo eejeeyo abobool u tuur warkaas ma maqasheen mise ma maqliyees no ما إذا إيمانس عدل إيمانس أباي زم ساقب صباي زم مغلسة أجي وسلامي ولالك أدي هذا ما سنتهي لما أصحابتنا وسلامي أنت نداو نسا هي تتكاين هل كان نقول تشيرو رنتي أرتمانت برامج كأذ مداونين حتى صاهلي الجوريثم كان واثقنا ماركتي سوء ريجا يكو إيمانا مركا laakiin waxa weeyaan horta walaalkeen Allah inoo caafiyo aynu u duceyno ilaahayna ha garab galo oo arrimihiisa ha toosiyo dadka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka ku nool runtii aad bay ugu warwarsan yihiin marxaladiisa mana ilaawi doono mana ka hari doono waanan maaragtay daba taagnaanayna ilaa uu wadankiisa ku laabto oo maaragtay isagoo caafimaad qaba aan aragno marka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa aynu walaalowada duceyno aynaan ilaawin intaas waa intaas tan kale waxay tahay aniga ra'yigayga markaan cabiro walaalayaalow waxa ugu wanaagsan waxay yihiin meesha ay Soomaalidu focuska saarayaan halkaas kaliya xitaa waxay sameyn karaan inay baaritaano sameeyaan safarkii uu kaga soo degay wiilkaasi dalka Turkiga wixii ka dambeeyay kaamiradiisu ma saxsanayn maadaama aan ognahay Mareykanka kaamirooyinkiisa abeed inay ahaayeen maadaama aan ognahay xitaa diyaaradaha uu raacayo meesha uu marayo inaynu la soconay waxaan u baahanahay evidence-yada meelihii uu maray Norway iyo Sweden dadku la kulmay waxyaabo badan baa jira oo dadku ay maaragtay soo saari karaan marka haddaynu focus gareyno xanuunkiisa iyo familkiisa iyo waxa maanta taagan waxaynu ilaawi doonaa cadeymaha dhabta ah waana ogtahay wax la jiro wax la dhaho body language waynu dareemi karnaa markaynu helo wax badan oo muuqaalo ah dadku ku faraxsanaa dadkuna ku faraxsanayn signalada uu bixinayay meelaha dhibtu ka haysatay iyo meelaha maaragtay uu ku faraxsanaa oo aad maaragtay farxadiisa u muuqatay waxaynu wareysan karnaa oo la heli karaa dadkii uu la kulmay marka dadka hadday doonayaan runta inay soo saaraan qaab kale oo ku soo saari karaan baa jirtee wiil maaragtay dhakhtar ku jira kaliya kuma soo saari kartaan inaad ku mashquushaan taasina waa ra'yigayga aan markaan cabiro as a journalist qaababka wax lagu soo saaro maaha kaliya mushkiladda in la focus gareeyo laakiin mushkiladda maxaa keenay in la soo helo waa muhiim waxa kale oo jirta mala awaalka in laga baxo oo maaragtay aan wax la mala awaalino anigu waxaan ku fikiro iyo dadku waxay ku fikiraan haddii halkan maanta oo dhan laga hadlo micno badan ma sameynayso laakiin aynu qaadano inaynu bal war dhacdadani cadeymay leedahay wiilku signaaladoona siinay balan dib u raacno war dhacdadani talaabooyin badan bay martay aynu soo saarna xaqiiqada dhabta ah laakiin inaynu maskaxdeena adeegsano waxa ka fiican sawiradii fiidiyoyadii safaradii talaabooyinkii dadku la kulmay
waxaasoo dhan baa laga heli karaa caddaymaha. marka intaas waa my experience aan idinku kordhinayo. dib u eega tallaabooyinkii wiilkaas uu qaaday. waxaad ka qayb ka noqon kartaan marka inaad indhihiina ku soo saartaan oo aydan maskaxdiina adeegsan caddaymaha aad adeegsataan hadhow toole. marka intaasaan idinku kordhin lahaa. tobigana lamaana socon. mar kale waxaan idin leeyahay ducada wiilka yaan la ilaawin. maalmaha jimcaha waa muhiim. salaad kastoo dukanaysaan in wiilka arrimihiisa ilaahay hagaajiyo. annaguna haddaanu nahay dadka Oslo degan runtii culays baana saaran. ma awoodno inaan soo booqano, ma awoodno inaan maaragtay wax la qabano. arrintana runtii waxaan u aragnaa mid qusaysa familkiisa maadaama ay jirto waa la kala shaqeeyay arrinka la yiraahdo. marka aad baan idin salaamayaa. AJna waan u mahadcelinayaa sida uu walaalkii maaragtay abdheed uga dhigayo arrimihiisa. waan salaamantihiin. booskana waan banaynayaa. su'aal haddaad qabtaan waad weydiin kartaa. AJ codkuu kaa xiran yahay. okay bay macaan su'aalku ma hayni allah ku sharfo ayaan rabnaa noo soo gashay gabar waxaa tahay maartay waan soo fiiri profile-kaaga ilaahay ku sharfo bay macaan hadaan ku baahno ku weydiinaa su'aalo marka hadda waxaa soo galay ninka elman adeer macaan waa ku salaamay waa ku jooga adeer macaan anytime you boss soo dhow abo you boss and ayuta boss soo dhow laakiin qaaliga ah ejo inaan ka darto waan rabaa in adeer I think bilka mid hal waxaan la rabaa in ku darso in adeer oo inta degan number 1 abo waxaan u duceyno si waxay sugaan ayuta boss waxay sugo kuwina baa soo gaabay hadalkaaga waa ku bariya abaayo haabo wiilkana aan duceyno tan labaadna waxa weeye abo arrimahan say gabadhan sheegtay hala daba galo am sure daba gal wuu socdaa laakiin hala aan sii daba galno let us use our intelligence instead of our judgment tan kale gabadha hadaayta waxay kugu dhahaysay videoga uu dhahayay waa setup baa lagu sameeyay gabadha ku soo dhahayaa I think snapkiisu soo dhigay if I'm not mistaken he said that video 16 ka igu tiri 16 ka waa kana so okay Allah ku sharfa abaayo wallahi saa sheegto waa 16 kan tiriyay 16 ka ku dhacday dhageyso wadadan dadkii dhan mud igala waan baryayaa codkan hadduu daciif yahay waan dheereynaa dhageysta kan ila socodsiiya dhacayaan markay wax walba igu waayaan gabar buu kufsaday daraag buu galay dembigaasuu galay interpol bay raadinaysay waa la xiray hadda dembiyadaasba idaacadda laga soo deynayaa wax walba oo kale markay iga qaadi waayeen fiirsada idinkuba waxaase la soo sii deynaya hadda dhacayaan markay wax walba igu waayaan gabar buu kufsaday daraag buu galay dembigaasuu galay interpol bay raadinaysay waa la xiray hadda dembiyadaasba idaacadda laga soo deynayaa okay codkayga waa la maqlaa miya ma la maqlaa hadda waa ku maqalnaa okay gabadhaas ii soo qortay video 16 ka fiiri book caadiga oo ninkan wuxuu qoray wuxuu yiri markay wax walba igu waayaan hadda waxaa ka hadlaysaa videogan daawanan waxay tahay waa wax dhici doono oo dhacayana waa fiiriya markay wax walba igu waayaan waxay dhihi doonaan waa ujeediyana umalaynaa waa maqlaysin adinka inaan ii fasirin mar labaad ma rabi marka waxaan rabaa videodan usoo gelinaya waxay tahay maadaama aan wiilkii annaga intaan maqlin oo qof walba imaanayana wax kale qaasa sheegayay xataa ninka tegey oo annaga noo tegay oo yiri Soomaali Maxamed aan u tegay oo wiilkan soo baaraya maalmihii ugu horreeyay tegay deeq gosood salaadoo noqdo deeq gosood wuxuu yiri aan ma rumayn kari maalintuu baxayay wuxuu dhaho waa rumaynayay laakiin haddadan deeqkii sida waxaan arkay leefleefayo ninkii dhan oo dulminaya ninkii xal dhahay magaciisa muxuu ahaa Omar oo dhaha ninkan conditionkiisa arkay ninkan saana noqon doona ninkan anina ma faanaa deeqii soodkii atiga ahaa oo aniga dhahayo ninkan reer Mareykan waxa lagu yaqaanaa very stubborn people inay yihiin oo ninka wuxuu igu hayaa inaa madaxweynihii Puntland noqon doona maxaa naga madaxweyne Puntland uu noqdo wax naga galay malaha madaxweynihii Puntland sheegtay madaxweynihii
akula akala noqo waxna naga magala anaga afan soma waxa naga galan waxay tahay qof maanta soo galo anaga Norway noo faanay adduunka taas ugu nacayo yani Norway maxay ugu faanay yani Norway ma soo socdaan maya wiilkan walaalkeen ah kaliya rabnaa well-being-kiisa sidoo yahay sida xaaladda u jirto oo la qarqarnaa rabnaa intaas rabnaa anaga marka su'aasha ugu weyn oo meesha la isweydiiyaa waxay tahay waniihow maxaa jira meesha ka jiro horta aan hadalkaygaas fiirsada dhageysta arrintan arrinta ka weyn tahay arrintan arrin weyn waay hadalkaas meel iga dhiga arrintan arrin weyn waaye arrintan arrin miisaan culus la waay waa runtaa it's organized crime musiiba haysata ilaahay ka soo daayay wallahi waa wax kulliga naga weyn waa wax kulliga naga weyn I don't know if the government is aware of Norway laakiin waa wax aad u weyn ninkan wuxuu sheegayo it's like he knows what's going to happen to him step by step ula socda wax ku dhici doona we don't even know subxaana ya cadiim wallahi aadan wanax ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkaas ha soo daayo walaal macama kaa deganaya ilaahay ha soo daayo ilaahay dhibkaa ka dulqaado musiibada haysata waan runta deeq darajo ninka uu leefleefaayo waa ninka tunka weyn ku jiro maxaa gudoomiye naga galay maxaa madaxweyne naga galay we want Omar hadina if you're not going to help Omar don't tell us about someone's credit maxaa ku dhahay ama Norway ama qof shakhsiyana we don't give a shit of that marka aboo ninkan wuu hadlay wuu calool hadlay waxa dhici doonay waxa soo socda wuu ka hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa caawin kare ilaahay ha caawiyo waayo waxa ka garan kartaa horta meesha dhibaato weyn jirto qof kasta wuxuu ku leeyahay ilaa Omar baxo ma hadlayo xataa gabadhan dadka dhahaysa la soo baaro ama Sweden haata ama neighboring country haata ama Turkiga haata qof ku sheegay xaqiiqda ma jiro wuxuu ku leeyahay sugninka meesha ka bixay that means there's a huge threat musiibo weyn baa meesha ka jirta marka I don't know what Norway waxa lagu dhawa wadan sharciga ku adag waxa khaldan marka in adeer ilaahay walaalkay ka soo daay meesha dhibka way it's very painful we don't even know familka wax lagu hayo familkan blame gareynayna ma ogin xataa familka in hostage ay yihiin say deeq darajo u jeedno anagoo u jeedna indheena shan yihiin ayuu deeq darajo hostage noqdo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo daay waxay ka dhex galo xalay waxaa jirtay mar qolka taajir koray mar 2 saac habeenimo ee ahayd waxa ugu tagay deeqiisood iyo team kale iga sii horeeyaa saarnaa marka duqbilo waa deeqiisood wuxuu weydiiyay information aan ka rabnaa Omar ada u tagta wax sheeg wuxuu yiri marka farahan kala baxay arrinkaas waxba ma sheegi kar buu yiri hadda aan ku sugan ana nafteyda safe gareysanayo inuu marka waxa u dhigan tahay yaani anaga arrinka Omar walaalayaal horta hal mid gabar iyo wiilbo dhalinyaro ahne mustaqbal u baahanahay nolol u baahanahay maanta raggii fam asxaabta kale raggii maanta intay Afrika ka tageen dadka soo caawin lahaa wax qaban lahaa yaani dhalinta maanta garab istaagi lahaa hadii ayagii la dabargoona dadkii dabargoonayna aanan ka qaban karin way maxaan ka noolnahay gabaraan ahna mustaqbal u baahanahay dadkiina dhalinyarada bariya abaayo marka hadlaysan dadka soo gaabiya hadalkana hadii qof watiya laga galin sababta waa la duubayo dad badan waxa jooga oo duubayo marka wixii la duuba aniga duubitaanka iga miimsan life-ka soo galayo marka hadda 2 daawato dadka daawanaya ka badnaanaysa marka hadalkii iska dhex gelin soo gaab hadalkaaga sida aan waxyaalo badan oo kale u keeno waan soo gaabina waxaan ku soo gaabina waxay tahay ejo ani hadda hoosan ku fadhiyo muda kugu jira waxaan u aamusanaana waxaan sugayaa raggaas inta imaanayaan waxyaabaha aan hayo la aamusanahay waxaan la sugaa importantiga marka meeshan la iskugu yimaado ilaa ay dadkaas imaadaan wixii kale ka falaqin kartiin hal aan muuda ku jira marka hadalkaas hadda waxa u soo galaa waxay ahayd xalay inuu deeqiiso dahay arrinkaas inuu aan farahan kala baxay waxbana nimaba ka hadli karibo soo qolka taajir saar marka okay bye musaxadisa ayutubos ku yaa king ayutubos ku yaacaysa abo meeshan iska saarnaa tartaa walaalkay brother waa ku salaamay brotherkii way maqlaysaa Soomaaliya zaid walaalkay qaaliga brother AJ thank you so much shaqada fiican ay haysid oo ninka walaalkeena update-kiisa iyo xogtiisa iyo waxyaalaha reality-ga
iyo social media ka difaaca sida aan ku jeedo mar walba adoo hataa dadka isku dayna wax ka sheegaan ma garad marka intaas oo soo galay brotherkayga shaqo fiican baa haysan aan ku dhaho hawshana saa u sii wad insha Allah guuleysana brother asagana uu soo duceynaa ilaahay inuu caafimaad siiyo ninkaas awjeedin king youtube wasa la saaxiibana long term saaxiibana Allah